tani waa saylada xoolaha ee magaalada Fiiq oo ku taala cirifka waqooyi ee magaalada Fiiq. Suuqani waa suuq toddobaadkii 2 maalmood xoolaha lagu gala karto. Labada maalmoodna wuxuu ka mid yahay suuqa ugu ballaaran ee magaalada Fiiq. Maalmahaas laga dareemayo waxa isugu yimaada bulshooyin kala duwan oo ka kala yimaada meelo kala duwan. Bulshada suuqan xoolaha soo doonata waxay ka timaadaa gobolada dariska sida gobolka Jarar, Qorraxay, Faafan iyo sidoo kale gobolka dariska la ah gobolka Erar ee Oromiya. suuqan xoolaha ka yimaada ama xoolaha lagu iibiyaa waxay kala yimaadaan sidoo kale gobolka Nogob, gobolka Erar iyo sidoo kale gobolka Baali ee dhinaca deegaanka Oromiya iyo degmooyinka dhinaca Baali xiga ee gobolka Erar. Suuqan waa mid ka mid ah ilaha dhaqaale ee ugu weyn magaalada Fiiq. sidaas darteed waxa fursad shaqo ka helay boqolaal ruux oo ku xoolo ku iibiyo xoolaha soo kaxeeya ku raaciya iyo sidoo kale kuwa iyagu ganacsiga yaryar ee hayaan intay halkan keenan uga faa'iideysta dadka xoolaha keena isla markaana ka laba iibsada taasoo ka dhigan in fursad dhaqaale iyo fursad shaqo ay ka heleen bulshada ku nool magaalada Fiiq ee xarunta gobolka Erar. waxaa la qalay markaad 100 ka qabanaysaa markaad tirayd 30 saddex farood baad soo raacinaysaa kontonka markaad 100 saa tiraad 5 taad saa u qabanaysaa 60 markaad taas saa u qabato taas haddana taabanaysaa xubinta marka waa 60 weeye 70 taas mad qaban halka xubinta 100 mar iyo 80 markaad taas 100 ka qaban 80 kale xubintaas qabanaysaa 90 markaad saa tiraad iyadii in baad saa u yar godi oo ku yar leeyahay xogaa hashan saas iyo saasan ku doonaan نقد ما يصح ساك هبل اللي يرصص قال لي تكسا كم بتاع بعمل شو سمعتي كم سنه بقول توني قسيش بقول توني بس والله خلينا waxaa jira nidaam sir ah oo xoolaha loo kala gato ay Soomaalidu si gaar ah waliba u kala gato nidaamkaas waxa weeyaan gacanta ayaa hoosta la soo geliyaa gacantana waa la qariyaa taasoo gaar ah Soomaalida hadaba salaam alaykum wada saatay bal iga gad orgigan hal orgiga waa kee kan orgiga orgiga Soomaha sidoo ma kaasina waa kun riyaal saas waxay ka dhigan tahay waa 10 kun waayo waxaan ku weydiiyay gacanta hoos la sigiliya Soomaalidu markay xoolaha kala gadanayso arintaas maxaa sababay waa xil qarsiin horta haye eega adigi iyo ruux kala doonaya neef ruuxan kala neefki wada dooni yaa isugu duliman haye adigan ka baayici صح wixii aan ninkan aan kulahaa ninkan uma maqlo صح haddaan saafka ka baayico waxaan isna ugu maqlaa صح xoolaha hadaba u roontahay صح بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waxa la yiraahdaa Saciid Macalin Cabdi halkani waxa weeyaan saylid ku taala saylid weyn oo caan ah ku taala gobolka Erar gaar ahaan degmada Fiiq bay ku taala Ismaaciil Abdilaal baad dilaal baan anu ayo saylid dilaalka saylida dilaalka dilaalin dadka xoolaha gada ayaan kamid ah ma intii saylida la furo ma dilaal noqotay mise dilaal horaasiyay ma intii saylidan la furo ma dilaal noqday ayo waagi hore bari nin xoolo dhaqataa maana marka xoolaha waati abaar kulul wadanka ay ka dhacday oo dadkii cid abaarta ka baabisan kamid ah marka magaalada ayaan ku soo dhaadhacnay nasiibana magaalada markaan ku soo dhaadhacnay
nasiib waxaan helay inay saylid nooga furanto halkii aan joogno waan gartay marka xoolaha iibisa ariga ma geela inta waan iibiyaa ariga geela waan iibiyaa maanta maxaad iibisay maanta waxaan iibiyay 100 neef aan iibiyay maanta 400 neef aan iibiyay sax marka 400 neef adiga 100 baan iibiyay 300 way bixeen sax marka neef adiga dilaalkiisu waa 150 100 neef waxay noqonayaan 15 kuma noqonayaan ma saad kaliya 15 lacag la soo marka sayladu kulley waxa ku jira risq aad u fara badan nolosha waxay kamid tahay waxyaabaha bulshada kulmin kare kamid tahay ee dadku maartay nin meherad la yimaadiyo nin neef la yimaado nin bagaash la yimaado nin geeskara u soo doonto waxa ka maanta ka kibisay karta in aad u fara badan marka khayraadya ugu fara badan ee dadka kurintiisa kamid ah bay kamid tahay way adiga maanta maalmihii ay wax kugu yaray wax ka soo galaba mise waa maalmihii kugu badnaa mise dhaxdhaxaad batay kulli waa dhaxdhaxaad weeyaan maalinkaad u badnayd sadaqad maalinkii aan u badnayn 25 kuma ka qaadnay 25 kun dilaal oo lacag ay maalinka u gartaan kulli waxa jirta cid uu moogtahay marba si weeyaan xilliyada dadku inta diraac soo maraan waqti hoga la dhaho waxa jirta xoolo maartay doogna ayna gaarin diraac iyo cawsna ka gaceen xilliga kariilo baa la xoolo si fiican suuq uma leh dadka baadiyaha degan waa xilliyada cid ay u dhibanto cid in xoog la saaraa la isku dayaa marka waqtiyadaas kale waxa laga yaabaa seelidaba inaan laba iman bay u dhida oo seelida guud bay u dhida cid yar oo kooban oo la tirin kara inay yimaadaan marka xilliyadaas oo kale cid waqtiga ay ugu yartahay weeyaan eeg hadda xilligan aan joogno waagu hadii la raaco gamashi baa la yiraahdaa cid way noolaato neefku weydsanaa oo dhan wuu cayilay ruuxii ay xoolo ka shatiri jireen xoolihii baa nacfeelo way istaageen marka waa fursadii waa seelid hadda marka seelida hadii xoolo yimaadaan suuqyadu wax si fiican markuu suuqyada aad buu adag yahay sababtoo ah cid inta leegtahay markasta lacagta leegtahay sababtoo ah shirkaduhu waxay ugu jecel yihiin meesha ay ka helayaan maalinta hanti urursa marka cid xilliga ugu badan tahay lacagtan ugu badan tahay taas sababtoo ah hadii seelida cid yar tahay lacag ma imanayso way dilalku waa laba qaybood xoolo gadanayaa oo ninka xoolaha gadan uu iibinaya صح idina waa ka xoolihiin ahay labadood mid walba faa'iido ugu jirta mid walba faa'iido ugu jirto dilaalka horta ka kale waxa la dhahaa khidmaal la dhahaa qofka haduu lacagada cid lacagta uu la socdo khidmaal la yiraahdo ninka xoolaha la socdana dilaal baa la dhahaa marka khidmaalaha neefka ariga 100 way khidmad neefka geel ahna waa 500 weeyaan khidmadiisu marka saasay u kala bedelayeen sida kale xoolaha ugu faraha badan waxay kaga yimaadaan gobolka ceelweyne iyo gobolkan erada iyo waxay ka yimaadaan intaas ka yimaadaan marka baali bay ka soo talaaban degmooyin hadii la dhaho qubbi qarri iyo nagabtaas bay ugu fara badan ciidaha ka yimaadaan marka saas weeyaan adiga maalinka dhaqaalaha ka soo gala seelida mudadii ay jirtay ka shaqeynaysid maxaad ka tabacay waxaan ka tabacay kulleeytay waxa jirta xagga tabaca hadii la dhaho waxyaabo fara badan ka tabacay way jiraan marka waa sidaas kulleey waxyaabo badan ka tabacay way jiraan marka ma inaad dilaalun si hata doonayso inaad ka gudto adiga laftaada xoolo yarato هذا مستقبل كورتي كل قفكو هل ترجيد إنه له ما في عنا وقت لكن لو شاطو مربى وحباد مرت تساعدك أنت كل كست واحد يساعدك أنت إن هذا قرتي بس حدي مركيني دليل اللي مونا هذا ما يقوم جبت هدفك أساس حلوي بيانو ويج لباس سبتي عن قلعة أديو قضي لباس سبتي وحنو قضي سديد بقولي كنت نافو أديو أنا قضي ورجيه سبتي ديبا ما يلا بدي سبتي كابتن وحن كرري سدح جاري سجيدا كرري أو درهاد يدار تكور ريسي يلا بقى أنا تاني يجوجين مركز وحيل هالي كرا كابتن إيه هبين كيست هذا في الدين بقول قالين هرجيس الله كحية في الدين هل كان بالك قضي هل كان بالك قضي كابتن الله وير ونجرو سدح قبيا الله قضي ما أنت waa kuwa waadka kuwa adi kala fayskoodii kala wakaa oo fayskii la fayskaas qoladaas kun qaalin bay gadanayaan marka boqolkii u horeeyay way tageen 900 baa markaa dhima 900 in saddex gabay ku afjarmaan baa hadafka la qabo weeye sababtoo geela ay hoosta ka soo noqdo waa aminka garan geelu galbeed ku xijir aad u joogan shirkaduhu sababtoo tahay in yar baa hadda ka hor yar adkayd waxa fiican qof dadka shirkadda wuxuu ku jecel yahay saadu neef ku waxraysto gawaadhi taagan inuu helo si maartay hantida ay uga dhumo intaas kullee gawaadhida waxay u baahan tahay inay si fiican maartay dhinaca gawaadhida looga hawlgalo oo shirkaduhu markay ay wax gataan ay helaan gawaadhi halka taagan halkaas waan ku in seelida lagu beeriyo u baahan tahay taas iyadu waa codsi aan idin sheegaya
dadku eega waxaa laga yimaadaa sida maaragtay cabasho oo kale baabili oo kale dad baa ka soo qaada badeeco u yimaadaa wax kastoo waxaa la soo dhigaa yani ma garanaysaa ruux waliba wixii uu hayuu soo dhigaa marka inta faraha badan waa lagu faa'iidaa waxaa laga yaabaa qof anigu waxaan eega nin baan isku xidhanay maalinta maaragtay gabayadoo kale aan u geeyaa dadkayga safarka ninkaas wuxuu ka yimaadaa galbeed dhar buu wataa 30,000 maalin aan waxa laga yaabaa inaan maanta kale 30,000 ka iibiyo 40,000 marka inta faraha badan waa laga helaa dad kulleeyta isku dhex jirin laakiin sida qaalibka toogada waa laga helayaa sababtoo ay tahay suuq ugu iswadaa waxaad noo sharaxdaa marka xoolaha la kala gadanayo gacmaha la isii saaraa bal gacmuhu waxay kala yihiin iyo qaab tirada loo kala gartay loo kala cayo waxaa lagu kala gartaa si guud majooritaan saa haddaa la dhaho waa 500 waa 5,000 bay noqon kartaa markii saa la isku duuduubo 50 way noqon saddexdaas ka dhigan tahay faryarada oo fartaas haddii la isqabto xubinta 6 bay noqon 60 bay noqon 6,600 ilaadahaas tilmaamaysaa haddii fartaa xubinta la isqabto waa 70 ama waa 7,000 adu waa 7 ka tajriibtaasi marba wixii ay la socotaba taa haddii la isqabto waa 80 ama waa 8 ka iyadoo ka tajriibtaa tan haddii saa la isu qabto waa 9 ama waa 9 waa saas iyadoo matalaysa halkaas oo kaliya haddii la saa la dhaho waa 100 ama waa 10 marka saas bay u kala xadeysay 10,000 bay ka tajriibi kartaa 100,000 bay noqon 10,000 bay noqonaysaa far kaliya marka salota waa taa far oo dhan la isma qabanaya fartaas uu ku xigtay farmurisada loo yaqaan afka Soomaaliga xisaab waxa jirta tusaalahan 100 waxa la qalay marka 100 ka qabanaysaa marka trade 30 ka 3 farood baad soo raacinaysaa kontonka markaad 100 saa tiraa shantaad saa u qabanaysaa 60 ka marka taas saa u qabato taas haddana taabanaysaa xubinta marka waa 60 weeye 70 taas mad qaban halka xubinta 100 mar iyo 80 marka taas 100 ka qaban 80 kale xubintaas qabanaysaa 90 marka saa tiraa iyadii in baad saa u yargodi oo ku yar leeyahay xogaa marka waa xisaab barasho u baahanta waxa weeyaan waa qofka in laga dhaadhiciyo marka hore soo baahanta halka namarada hoosteeda waa la iska tusayaa si fiican ruuxi halkaas socdaa uma garanayo waxaa loo marinayaa waxani waa mashruuc kastoo la arkaana siyaasad buu baahan yahay laba qof buu ka dhaxeeyaa sababtoo ay tahay qofka dilaalkii uu ogtahay waa siyaasad wuxuu ku jiray kan kale wax gadanayana waa saas marka waxaa fiican marka ummadda wax loo sheegaya dadka gaarka wax qusaysa horta inuu isagu wax isla qaato marka wax isla qaato dadka xolatay karaya marka haddii banaanka afka xol iskala baayaco dad fara badan ma ka faa'iideysanaya dadkuna deelax jecel isku marka idinku hoosta isaga sheegtaan adiguna safarkaagi baad wax u sheegi kan khidmaalina qofka lacagta wati wax u sheegaya laakiin idinku soo idin qarsan marka hore waa inaad wax isla qaadataan marka gabigeeda siirada markii jooga faraan baa xisaabta la soo sheegay gabigeeda farax loo sheegaya wax lacag toos loo sheegay tirloosh ma maqlaysid ma jirto markii adiga ninkan asaa wax isla qaadataan yaad u sheegay dadka qosiisood ku oranaysa saasaan ku gadnay haddii laakiin aad saa dee korka afka laga sheego maadaama haddii si loo dhaw kulleeyay wax caadi u fiican yahay haddana laakiin dee waxoogaa kuma fiicino dhinaca biico dee horta idinku waxaad istirhaan ma biicuna waa dagaal marka xaggana ruux iska bislaynaysan waxoogaa kadib aad dadka wuxuu soo bandhigaysaan shay kastoo la arkaa ku fiican mid kale in maartay dadka qosaysan marka hore gorfayaan
كاشلين بل هرت أفك الصومالي هدي الله كاشلين بل كاشلين كاشلين بل كيفستنا الديلاهي بقى قيبيه وواحد حويان يعني ما كان هذا حق الربي حكم كايمن يويان وإلهي باسكال في رسمة تسكب أسكال على عيسى حاسك جرن شان يلح نافه في عام لقيا ما أنت إني بحدو تأورت قالمة اللي بتجري شان يلح قالم بعد جرن تطكي مود waxay raali ku yihiin baa dadkii kaga goosan halkaas iska joojsanaysa ee qolada shirkadda ku jirtay baa ku iman waabadu sheegay iyaga dib ma laho xadan sanniya horta intaas igu joogtay inta ay ugu daray way kugu darayaan marka in ay kun kugu daraan shan kun inay kugu daraan baa la arkaa marka way jirtaa arrintaasi si fiican bay wali u jirtaa siilad wali waxyaabaha laga qawxiyay ugu badan tahay ruuxu soo maran oo waxba wadanin soo galay siilad xabad riyaal soo wadanin soo galaya cid bad xoolahan ku kala faa'iidiya farsamadaas way jirtaa inta ugu faraha badan bay jirtaa marka way jirtaa de bob ka jirtaa maanta hadii wananka oo kale lagu jiro haweenaha xarkaha wata iska yimaada carruura ka soo faafa konton ba isku xidhan wanankana shirkad baa ku jirta Soomaa taas kale wareegayta 100 saaran wala 200 saaran wax yaan la isku khilaafsanay waa shay caadi oo jira weeyaan wax la isla ogoliyo wax tuugaysiyo maartay isdaba goyna ma wax la isla ogoliyo caadi ah weeyaan maanta hadaad ku neef adhiyo kala doonaysid kaliya ma urursan kartid marka de waxa xalay intii dadkaas ku soo ururiyaan oo isla ogoshina adiguna wax ugu yeerdirta adigana sida wax ay kugu qabsoomo taas wax la isla ogoliyo weena jirtaa ruuxan xoolaha wata ma garanaya gacanta صح adigana dilaalo ah suuqiina marka saddex gacanta hoos la soo dhigayaa صح oo xisaabta gacanta la isticmaalayo xisaabta faraha marka ruuxi si wax lagu sheegay ruuxa lagu sheegay adiga markii ruuxa aad xaqan isku gasheen oo adiga horta wixii ku qanciyay ma wax kale uma sheegaysid adigu maadaama neefka soo sixir suuqa taqaanida neefka maarta neefkaagi waa waa in horta wax macquul adiga kugu hod qaadatay markii aad aragtid yaad wax u sheegaysaa gacanta adiga markaad xaqan isaga bisleen isaga afkaad uga sheegi wartigaaga 8,500 baan ku hayaaya ma siinaa baad leedahay tashigaas adoo laakiin go'aanka adiga iskale marka hore wixii ku maran baad siinaysaa maadaama adigu suuq joogto tahay marka waxaad ka oran kartaa gabayada cidda saaseed suuqana waad ogtoo shirkadaha inta ugu faraha badan iyo marba xilliga suudiyaas isu bedeliyo dadka dilaalintii wax uga warran ma jiro sababtoo tahay shirkad kasta ay maartay barsingeedii inta ku sameeyay hantida rabtaa inta ay tahay waan ognahay anagu hadii iyo inta shirkadooda naga tagtay inta nagu soo foodle inta maadaama ogtahay si fiican adiga marka hore u qaadan way adi xisaabta faraha waqti la ku qatanaad barto waxay kuma qaadanay siilid soo galitaankeedii bay marka siilid gashida adiga oo dani oo ka gasho si fiican baad u baranaysaa aad baran si fudud baad ku baran miyoon ku horeeyad ku baran may